intii halkan joogta iyo inta shaashada naga daawanaysa baanu salaamayna. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaanu saaka ka nimi magaalada Dubai baanu saaka ka nimi annagoo ah wafdi ka kooban wasiirka qorsheynta anigoo wasiirka arrimaha dibadda wasiirka maaliyadda maareeyaha dekedda shalayto oo ay bisha March ay koow ahayd waxaanu saxeexnay laba heshiis oo aad iyo aad u muhiim ah oo taariikhi ah oo midna saddex geesood ahaa midna laba geesood ahaa heshiiska saddex geesoodka waxaanu ku galay Somaliland dawladda Somaliland oo kaanu matalaynay iyo dawladda Ethiopia iyo shirkadda DP World ee ku taala Imaaraadka kasoo jeeda Imaaraadka wada hadalka heshiisku muddo dheer ayuu runtii u soo socday wuxuu noo suurtagelinayaa heshiiskaasi sidii loo ballaarin lahaa dekedda oo la socotaanoo dhaqaalaha geeskan Afrika aad iyo aad buu korayaa dhaqaalaha iyo dadkuba runtii aad iyo aad bay u korayaan waxaanu u baahan yahay dekeda aad badan buu u baahan yahay mid iyo lababa ka badan runtii baahidiisu marka baahida insha Allah faraha badan leh ee waxa dhoofay waxa soo degayaba ay dabooli doontaa dekedu marka la ballaariyo saddex qol iska kaashadaan heshiiska kale waxa laba geesood oo heshiis ay kala saxideen dawladda Somaliland iyo shirkadda DP World oo ku saabsanaa curunta iyo samaynta suuqa xorta ama free zone ka waxa loo yaqaano free zone kaasi aad iyo aad muhiim u yahay waa meesha runtii shirkaduhu ay isugu yimaadaan ee shaqada laga abuuro goob shaqo abuur ay noqon doontaa insha Allah biidhnillaahi kariim kaana waxaan rajaynaynaa in isaga laftigiisa dhismihiisa la bilaabo sanadkan mashaariicda waxa loo bilaabaya sanadkan baa la bilaabaya insha Allah biidhnillaahi kariim marka si wanaagsan bay noogu dhacday alxamdulillah shirkadu waa shirkadii hore aynu labada geesood wada lahaayeen waa DP World Berbera dabcan markii Ethiopia saami ku yeelatay waxa iyadu markaa ay bixinaysaa intii kaga soo hagaagtay maalgashiga loo baahan yahay shirkadda ilaa 80 milyan oo dollar Ethiopia doorta waxa weeye waa suuqa aynu doonayno inay isticmaasho dekedda inaka Soomaaliland imka sida tahay insha Allah waynu filan tahay laakiin cidaynu doonayno inay isticmaasho runtii way Ethiopia dekada badan u baahan marka waa isticmaalka dekedda iyo khadamaad aynu sameynayno imka ganacsiga inaka Ethiopia naga dhaxeeyay dhinac buu ka reeran yahay inagu xumaynu ka soo iibsanay waxba kama iibino marka waxaynu ku bedelaynaa wax way khadamaad inaynu sameeyno dabcan dawaanay maal gashanaya horta arrinka free zone ka jagada imka la siiyay ciidan ma laha waxa weeye imka waa dhul bannaan weeye ciidan muwaadiniinimo degana waa dhul 1240 hektar ayuu noqonayaa waxa lagu bilaabayaa marka hore 50 hektar baa lagu bilaabayaa marka halka dhibaato kama taagna free zone ka waxa maamulayo gacanta ku hayn doona shirkadda DP World ayaa runtii maalgashiga oo dhan sameynaysa jidadka dhismayaasha biyaha korontada waxa soo nidaam sameynaysa waxa weeye waa mashruuca free zone ku wuxuu barbar socdaa mashruuca dekedda waa laba shirkado waa laba mashruuc horta ujeedooyinkan uu tagnay runtii kuma jirin hase yeeshee intii aanu joognay waanu ka faa'iideysanay waqtiga waanu saragnay qolada Imaaraadka uga mas'uulka maxaa raadayay dekedda wax iska bedelay ma jiraan inagu sidii aynu siinay dhulka aynu qoondeynay inuu base u noqdo wax iska bedelay ma jiraan runtii kaliya waxa jira in la astaameeyo halku dhulku maraayo marka arrinkaas un baa taagan kaas markuu dhamaadana hawsha caadi bay soconaysaa insha Allah su'aasha ugu dambaysa haddaan ku weydiino heshiiskan aad la gasheen DP World xukuumadda madaxweyne Muuse iyo heshiiskii xukuumaddii madaxweyne Silaanya la gashay maxay ku kala duwan yihiin labadan heshiis waa su'aal wanaagsan weeye heshiiskii hore waxa la heshiis laba geesooda oo ka dhaxeeyay Somaliland iyo shirkadda DP World imka waa heshiis saddex geesooda oo imka Ethiopia soo gashay saas kala duwan heshiiska waxa ku jira wixii dadka muwaadiniinta reer Somaliland qaban karaan in reer Somaliland ay qabtaan weeye hadda tay xilliga dawladda hooseyada ka mas'uula amniga meesha oo wixii amni xumo ka iman karto dabcan waa ka mas'uul dastuurkuna wuxuu siinayaa awooduu siinayaa dawladda hoose iyo maayarka intaba hase yeeshee wax mashruuc istaagay yani hawshii socotay rasmiyan xag siyaasadiisa iskama taagin xag farsamo ayaa jirto oo marka hore intaan deerkii aan la sameeynin in marka hore meel isla dhigo halku maraayo marka waa arrinkaas halku maraayo deerkun baa u noo hadhan runtii kaana markuu dhamaado insha Allah caadi wax walba